dowladda Kenya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay sababta keentay joojinta duulimaadyadii tooska ahaa ee magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi oo maalinkii Jimcaha ahayd ku dhawaaqday dowladda Kenya inay gabi ahaanba joojisay duulimaadyadaasi. Cabdullaahi Maxamed Cali ayaa warkan faafahinaya. dowladda Kenya ayaa markii ugu horeysay war ka soo saartay sababta ay u joojisay duulimaadyadii Muqdisho iyo Nairobi. Kenya ayaa ku sheegtay sababta ay u hakisay duulimaadyadii tooska ahaa ee iskaga kala gooshi jiray magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi sababo amni. Jimcihii la soo dhaafay ayaa ahayd markii ay joogsadeen duulimaadyadii magaalooyinka Muqdisho iyo Nairobi iyadoona Kenya ku wargelisay dowladda Soomaaliya in ay diyaaradaha ka soo baxa Soomaaliya ay tagi doonaan magaalada Wajeer ee waqooyi bari dalka Kenya. wasaaradda arrimaha gudaha Kenya ayaana ilaa haatan si rasmi ah uga hadlin sababaha loo joojiyay duulimaadyada balse Clipper Sikaiba oo ah madaxa guud ee waaxda duulimaadyada dalka Kenya ayaa wargeyska Daily Nation u sheegay in sababta ka dambeysay in la hakiyo duulimaadyadaasi ay yihiin sabab amni. 9kii bishan ay ahayd markii wasaaradda duulista Soomaaliya ee Kenya ku wargelisay in ay hakisay 9kii bishan ay ahayd markii wasaaradda duulista Soomaaliya ay ku wargelisay Kenya inay hakiso duulimaadyadii Muqdisho iyo Nairobi iyadoona wareegtadaasi lagu sheegay in ay sii socon doonto xayiraadaasi tan iyo 9 bisha Agoosto ee sanadka 2019. wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Omar ayaa ku tilmaamay go'aanka ay dowladda Kenya ku joojisay duulimaadyadii garoomada Aadan Cadde iyo Jomo Kenyatta inay yihiin mid siyaasadeed.